السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والله الصومالية aad baan idin salaamayaa waxaan insha Allah waxaan ku dhahdaa sidii caadada inoo ahayd maalin kasta oo khamiis ah lixda UK aanu ku ballansanayn maxaan ku dhahdaa inaanu xasuusino wixii shirkadda Ombasif ka dhacay asbuucii la soo dhaafay oo dib eegis ku samayno runtii life baan jeclaa inaan arrintan aan u sameeyo laakiin oo connect caawa lifekiisu uu diidan yahay taas waa baan recording idii ku sameynaya haddii ilaha yidhaahdo okay waxaan ka bilaabaynaa haddii ilaha yidhaahdo arbacadii ay bisha January ay ahayd 31 arbacadaasi sida aynu u baranayba waxaa soo gala 360ga nimanka la yidhaahdo Redfern iyo Martin Degama iyo Chris Johnson oo maxaan ku iraahdaayay badanaana inta badan waxaynu aragnaa isaga oo uu kala soo qayb galo maxaan ku iraahdaayay Ashu Farax gudoomiyaha shirkadda Ombasif hase ahaatee arbacadaas Ashu Farax kama uu soo qayb gelin 31 January waxaase maxaan ku iraahdaayay uu hawlo u lahaa awgood balama u lahaa awgood uu noogu soo dhiibay fariin Chris oo inoo sheegay arbacada 31 Chris wuxuu inoo sheegay inay maxaan ku iraahdaayay uu aashiri caawa saqda dhexe marka ay tahay Eastern Time 12 habeenimo ayaa waxa ugu dambaysa iibsashadii lagu iibsanayay oo connecti kaarka lagu iibsanayay habeenkaas ayaa ugu dambaysay hase ahaatee wuxuu sheegay inay muddo sii socon doonto maxaan ku iraahdaayay in lagu sii iibsan doono muddo cryptada oo qaybta cryptada lagu iibsan doono ilaa hadeerna lagu iibsanayo inuu aragnay dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku iibsadaan wali marka run ahaantii maxaan ku iraahdaayay cryptadaasi inay sii socoto aad bay inoogu fiican tahay sababtoo ah walaalo aan chance ka helin oo waqtigii hore aan waqtigu saamixin maadaama bishiina dhamaatay walaalo badan ayaa ka faa'iideysanaya oo maxaan ku iraahdaayay sii iibsanaya oo connecti waayo waxa weeye package-kii ama bushqadii ugu jabnayd 3 bilood oo isku xiran ayaa waxa la inaga siinayaa 190 gini oo seatiska aynu iibsanaynaana ay tahay 10,000 oo seat waad dareemi kartaa yacnihi inuu aad u jecban yahay soo walaal kasta oo aan iibsanin waxaan kugula talinayaa inaad iska iibsato way ku fiican tahay yes mar unbaad shirkaddan waad soo gelaysa waad iibsan doontaa oo haddaad ku jirtid kulliba waad iibsan doontaa hase ahaatee inaad ku soo geshid maxaan ku dhahaa package-kan jaban oo 3 bilood aad iibsatid oo sidaa uu kuugu shaqeeyo aad bay kuugu fiican tahay dadka ugu horeeyana aad ka mid noqotid traffic-ga iyo wax walba uu horeynaya Chris wuxuu maalinta inoo sheegay oo kale Ash wuxuu yiri waxa maanta oo arbaca ah la bilaabay waa arbacadii 31 bisha January ahayd in boqolkii qof ee u horeeyay maxaan ku iraahdaa aan ku tijaabino in payment-googii lacagtoodii ay emotionka ay ka heleen ee ay la baxeen withdrawal-ka ku sameeyeen in maxaan ku iraahdaa ay la bilaabo iyadoo boqolkii ugu horeeyay lagu bilaabayo runtii arrinta in la bilaabayna waynu aragnay oo de waxa Soomaalida dhexdeeda wali maan aragta hadii ana wali aamusnayn laakiin ajaanibka waan aragnay qaar maxaan ku iraahdaa leh waa payment-geegu waan helay wuxuuna sheegay in qofka habka quraata ee ku ogaanaya in lacagtiisii isaga loo yeeray oo sharcigiisii la weydiinayo in loo soo dirayo email loogu soo dirayo email oo mailkiisa ecosystemka uu ku galo iyo email loogu soo dirayo maxaan ku iraahdaayay Gmail-kiisi ama Hotmail-kiisi alternative email-kii uu gashaday Ombasif markii uu is-register gareynayay waxa maxaan ku iraahdaayay ay sheegeen in indhaha lagu hayo oo qof kastaaba oo lacag dalbadayba uu maalinta arbacada laga bilaabo ilaa maantada aynu joogno uu isha ku hayo maxaan ku iraahdaayay email-kiisa Gmail-kiisa iyo Mail-kiisaba ama Hotmail kolba ku gashaday ana email uu gashaday adigu Mail-ka kow
iyo emailada kale aad gashatay hadday hotmail tahay hadday yahowgii tahay any wax ay tahay inaad isha ku haysid marka waxaa kale oo iyadana khamiistii February kowda ay ahayd waxaa lagu daray 10 cisho oo connect ah ayaa laynoogu daray 10ka cisho waxay ahaayeen 10 ka bilaabmayay kowdii bisha February ilaa 10ka bisha February ku eg wayna dadka loogu darayna waxa weeye dadkii September kowdeedii ilaa September maxaan ku idhaahdayay 10keegii iibsaday unbaa 10keegii ilaa 9keegii dadkii iibsaday ayuunbaa maxaan ku idhahdaa 10ka cisho loogu daray jimcihii February ay ahayd labada waxaa dhacay kulankeenii Soomaalida sida caadadaba ay noo ahaan jirtay Somali Global oo maalin kasta oo jimcaha qabsooma waxaana aad loogu faahfaahiyey kulankaas inkastoo aan ka qayb gelin arbacada hore wixii qabsoomay sabtidii maxaan ku idhaahdayay February ay 3 ahayd waxa maxaan ku idhaahdayay qabsooma oo mar kastaan idin sheegaa oo takbaro kuwa la yiraahdo oo ay wareysato gabadha la yiraahdo Comfort oo YouTube ka soo gala kuwaas oo aad maxaan ku idhaahdayay u falaqeeyo kulba xaaladda markaas jirta iyo wixii talooyin hay dadka siinayaan waa niman aqoontoodu ay tahay maxaan ku idhaahdayay IT-ga nimankaas waxyaabihii ay ka hadlayeen aadka maxaan ku idhaahdayay isoo jiitay waxa kamid ahaa in ay dadka uga digayeen maadaama la yiri qof kasta email baa lagu soo dirayaa in dadkii maxaan ku idhaahdayay waxmadoolka ahaa fishinka ahaana ay iyaguna email dadka u soo dirayaan oo xataa mid kamid ah nimankaasi ayaa waxay u soo direen email ay leeyihiin verify your wallet-kaaga runtii kuma cararin laakiin markiiba wuxuu la tashaday saaxiibkii oo Bob ah kaas ayaa u sheegay inuu maxaan ku idhaahdayay eego bal emailkiisana uu eego marka waxay ogaadeen in emailkii aan loogu soo dirin kaliya emailkiisa kale loogu soo diray maxaan ku idhaahdayay warqada soo aad waxay ugu talinayeen Ashmi Faarax iyo dad maxaan ku idhaahdayay cid kastaana inoo sheegtay haddii qof withdrawal sugayo lacag sugayay lacag la baxay aad tahay lacagtii in ku soo dhaco sugaysid email la leeyahay emailkiina qof kasta oo emailkaaga laga la soo xiriiraya in labadaada email ba aad isha ku haysid waa ka emailka ah iyo kan kale ee maxaan ku idhaahdayay gmailka soo labada hata isku mar warqad ku soo dhacday warqadaasi adigoo waliba ka taxadiraya yes wad aamini kartaa akhriyayana fiirinayana maxaan ku idhaahdaa informationka ku qoran oo dhan haddii se hal email oo quraata aad heshid emailka ka taxadir waxa weeyaan waa qolad rabta inay maxaan ku idhahdaa xoolahaaga dhacdo okay waxyaabaha kale ay maalinta ka hadlayeen waxa kamid ahaa in aad maxaan ku idhahdaa ay dadka sheegayeen ay lahaayeen shirkadu waa diyaar wax walba waa diyaar adigu diyaar ma tahay haddaad founder tahay ma soo guurtay oo maxaan ku idhahdaa ecosystemkii ma soo guurtay oo affiliate linkigii ma saxeexday oo maxaan ku idhahdaa arrimahaagu ma isku guda ka dubadhacsan yihiin oo agreementigii u dambeeyay ma accept garaysay iyo haddii aad tahayba qof oo connect iibsaday so qof kasta oo shirkadan raba inuu mustaqbal ka gaadho runtii waxay tahay in aanad waxba dib u sii dhigan yes inaanad waxba sugin walaalo badan waxa jira sugaya oo marka hebel lacag helo ayaan aniguna maxaan ku dhahay lacag gelin doona waqti un baad iska luminaysaa runtii inaad intii waxaan ku jaban yihiin aad ka faa'iidaysato aad ayay kuugu fiican tahay waxyaabaha kale ee maxaan ku idhaahdayay maalintii sabtidii bisha ayay ahayd axaddii February iyadana waxaa dhaca sidaan horeba idinku sheegay webinarka heroiska waxaase ka dhaca oo connect ay isticmaalaan waxaase lagu weydiiyaa su'aalo fara badan ayaa nimanka lagu weydiiyaa oo hadday tag broga tahay hadday leaders waaweyn oo kasoo qayb gala tahay runtii any su'aal kasta oo maskaxdaada ka dhex buuxaysa waxaad arkaysaa isagoo qof weydiinayo oo uu ka hadlayo marka xataa su'aalihii maalintii dhexdaasaa la weydiinay waxaa kamid ahay war haddaan 2 account leeyahay oo 2 account aan maxaan ku idhaahdayay aan ahay nin anigoo kale ka imid maxaan ku idhaahdayay sharci kala haysta Somaliland sharcigeygii haysta haddii aan gashado ma gashan karaa sharcigeygii Somaliland iyo sharcigeygii Ingiriiska labadii account ma wada gelin karaa waxay yiraahdeen yes
wadooda gelin kartaa laakiin accountka aad UK ku leedahay UK ay cashuurta lagaga qaadaya accountka aad Somaliland kaarkiisa aad gelisayna kaas Somaliland ay cashuurtiisa leh waxa kaas laga bixinaya marka runtii su'aalo badan oo aad muhiim u ah ayaad maxaan ku dhahdaa ay ka faa'iideysaa marka aad ku dhex jirtid maalintii maxaan ku dhahdaa Mondaydii February shanteedii iyadana waxa maxaan ku dhahdaa inoo soo baxay new website cusub waayo sida la socotaan week kasta shirkadu website cusub bay soo saartaa laakiin weekii ka horeeyay laba jeer ayay shirkadu website soo saartay waa maalintii Isniintii iyo maalintii maxaan ku dhahdaa Khamiistii weeka ka horeeyay waxaan xasuustaa waqtiyada qaar last yearkii sanadkii ka horeeyay oo kale 3 jeer shirkadu website soo saari jirtay marka website-kan imika inoo soo baxayna maasha Allah aad buu qurux badnaa runtii aad baan hadda aragtaan aad uga yaabasa siduu u sameeysan yahay maasha Allah ay u sameeyeen salaasadii 6 February waxa ahayd maalin aynu la kulannay in marka aynu ka gallo maxaan ku dhahdaayay browserka aynu ka gallo accountkeena ecosystemka logout aan la sameyn karin oo uu istaagay logoutkii in la sameeyo dhag uu ku taagnaa oo dhinacnaba loo dhaqaaqi kareynin hase ahaatee isla markiiba waxa loo gudbiyay qolada tag ah ee shirkadda waana ay xaliyeen isla maalintiiba arbacad waxaan ugu soo toosnay iyadoo ciladii la xaliyay oo la dhameystiray marka arbacadii shalay February ay ahayd 7dana waxa qabsoomay maxaan ku dhahay 360 waxaana ka soo qayb galay Ashur Faarax gudoomiyaheena iyo leaders waaweyn oo shirkadda Ombasif ka tirsan saddex maxamed baa ka soo qayb galay runtii waxyaabo aad u fara badan bay kaga hadleen waxyaabahaas oo faahfaahsan oo tafatirana haddii Ilaahay yiraahdo kulankeena Somali Global ee Britole ayaa lagaga hadli doonaa aad baan idin soo wada salaamaya dhammaantiin insha Allah intaas ayuu maxaan ku dhahdaa warbixinteennii ay ku eg tahay